Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawaday weli ma ka fikirtay oo ma isweydiisay anigu ma waxaan ahay indheer garad, walaalkay ma indheer garad ba, iyo su'aalo la mid ah. Haddii ay jawaabtaadu tahay haa, muuqaalkeennan ayaan kugula wadaagi doonaa 10 calaamadood oo ay leeyihiin dadka indheer garadka ah. Haddii aad isku aragtona hubaal waxaa tahay indheer garad. Magacaygu waa Jimcaale Daahir, halkanina waa Salgaadh Media. Nagu soo biiro ka mid noqo bahweynta nagu taxan. Calaamada koowaad ee ay leeyihiin dadka indheer garadka ah wuu feejigan yahay dhinaca caqliga ah. Waa qof feejigan caqli ahaan marka loo fiirinayo, maxaa yeelay waa qof isagu si yar oo fudud wax ku xalliya, caqligiisuna uu markaasba ku wareegaya xagal 360 digrii. Calaamada labaad, waxa uu si degdeg ah u fahmaa macluumaadka. Haddii cashar loo dhigo ama xog badan loo sheego, isagu waxa uu fahmaa si yar oo fudud, isagoona markaaba kala soo dhex baxa dhowrka qodob ee xogtan ka muhiimka ah, halka ay dadka kalena ku dawaqaan inay waxaasi ku daalaan. Tusaale ahaan, haddii uu yahay arday wax dhiganaya, marka cashar badan loo dhigo, isagu waxa uu casharkaasi kala soo dhex baxaa meesha muhiimka ama main point-ka, halka ay ardayda kalena soo wada akhriyaan si ay xogtan u fahmaan. Calaamada saddexaad, wuxuu u feejigan yahay si cad. Qofkani waa qof feejigan ruux ahaan iyo caqli ahaanba, maxaa yeelay haddii waxaa la yidhahdaa dadkaasi haddii loo dhigo ama qorshayaal ama la shirqoolo oo kale, waxa uu fahmaa si fudud waxa meesha ka dhacaya, isagoona markaasiba ka feejignaada khatartaasi amaba shirqoolkaasi lagu soo wajahan. Calaamada afraad, wuxuu jecel yahay inuu keligii qabto hawl marka uu qabanayo. Qofkani waxa uu jecel yahay inuu isagu keligii wixiisa qabsado, isagoona u malaynaya dadkani inay isaga carqaladaynayaan. Calaamada shanaad, waxa uu jecel yahay inuu madax bannaanaado. Haddii uu yar yahay ama haddii uu weyn yahayba, waxa uu doonaa inuu jecel yahay inuu madax bannaanaado, uu dadka kale ka madax bannaanaado. Calaamada lixaad, waxa uu saadaaliyaa sida ay wax u socdaan. Haddiiba ay wax dhacayaan ama siyaasad ama dagaal u socdo, waxa uu si saadaaliyaa halka ay wax ku dhammaanayaan, isaga oona sii fahma markaasiba xogta iyo waxa meesha ka dhacaya. Calaamada toddobaad, waxa uu dadka weydiiyaa su'aalo adag. Haddiiba su'aalo loo baahdo inuu dadka weydiiyo, waxa uu ka fikiraa su'aalaha ugu adag. Tusaale ahaan, haddii macallin uu su'aal weydiinayo, waxa uu soo diyaarsanayaa su'aasha ugu adag, halka ay ardayda kalena iyagu ka fikirayaan su'aalaha yar ee fudud. Calaamada sideedaad, waxa uu jecel yahay inuu dadka waaweyn la joogo. Qofkani waxa uu jecel yahay mar kasta amaba uma jecla inuu dadka isaga la da'da amaba la qeyrka inuu la joogo, maxaa yeelay uma malaynayo inuu xog iyo akhbaaraad ka heli karo, isagoona mar kasta door bidaya inuu dadka waaweyn la joogo si uu xog uga helo. Calaamada sagaalaad, inta badan wuu murugoodaa. Qofkani marka uu wax saadaalinayo amaba uu indheer garadnimo muujinayo, waa qof waxaasi ay ku keento inuu murugoodo. Calaamada tobnaad, ma jecla inuu hal meel u taagnaado. Qofkani ma jecla inuu hal meel u taagnaado, maxaa yeelay wuxuu saadaalinayaa ama uu doonayaa meel kale. Uu isleeyahay haddaad meeshaasi tagto, laga yaabaa inaad waxa ka faa'iidi lahayd, isagoona kasii saadaashanaya xog kale. Tusaale ahaan, haddii uu shaqaynayo, qofkani waa isbedelaa.